السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبينا qiimaha badan ee ku xambartayna YouTube-ka Cabdulla Daqsiiso kale iyo Facebook page-keena xogtan media waxaan maanta ka heshadli doonaa jacaylka boqorada isteelka iyo soo kala haykal iyo xilliga ay u dhacayo guurkooda ay shaaciyeen taasi oo aan halkan kaga hadli doono balse daawade marka hore waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalka la gareyso soo kale shirkar saaxiibada kale ee Facebook saan helo daawadayaal iyo saaxiibo wanaagsan adigoo kale waad ku mahadsantahay la jaaqadkaaga iyo sida quruxda badan ee noo daawata ama muuqaalkan aad u shirkareysa saaxiibkayga qiimaha badan haddaba boqorada isteelka iyo sidoo kale haykal oo ku wada jira video leef ahaan baabarta tiktok leef kaga wada jira ayaa sheegay inuu araskoodu ka dhici doono magaalada ankara ee caasimada manchester to istanbul ee caasimada labaad ee dalka turkiga amba caasimada dhaqaalaha ee turkiga halkaasi oo ay u bixi doonaan bilaha soo socda arrintan ayaa timid kadib markii ay leef soo wada galeen boqorada isteelka iyo haykal kuwaasi oo kaga sheekeysanayay waxyaalo badan iyo arrimo badan dalka ka hadlayay si kastaba ha ahaatee boqorada iyo boqorka ayaa iyagu mar hore isu tagay magaalada hargeysa kadib halkaasi oo isbarashadooda kadib iyo jacaylkooda oo hanan qaaday kabacdi waxaa boqorada isteelka ay u laabatay dhinaca magaalada muqdisho ee sii dhaaftay magaalada nairobi ee caasimada kenya ugu dambeyntiina haykal ayaa isaguna ka daba tegay oo ugu tagay magaalada muqdisho waxay ugu soo dhaweysay muqdisho si hanan indhaba la arag oo kal iyo laaba ah taasi oo hay dadka oo dhani dhegta u wada taageen oo hay arrintaasi oo arkeen inay tahay jacayl midho dhalay iyo mid curtinimadii ka baxay oo laagiisa ku istaagay balse dadku waxay dhigta u wada taagayeen ugu dambeyntii qoolta hore isku dhacayo iyo xilliga ay shaacin doonaan araskooda halka uu ka dhici doono balse haddeer waxa ay shaaciyeen inuu araskooda ka dhici doono istanbul halkaasina loogu diyaargaloobi doono waa meherkan idhahdee lama ogastay carooska caadiga ah halka uu ka dhici doono iyo qalgalkooda inay noqon doonto xamar hargeysa iyo weliba turkiga iyo meel kale oo caalamka ah balse wax loo badanaya inay kusoo noqon doonaan markaa kabacdi hargeysa iyagii oo أو كدل بابانية عالم كسومالنا سي هيرب وسميين ugu dambeyntina oo araskooda ka dhici doono hargeysa maadaama uu wiilku hargeysa ka soo jeedo ay gabadhuna muqdisho ka soo jeedo araskooda inta baxna ay ka dhigan doonaan muqdisho oo ah caasimada Soomaaliya si kastaba ha ahaatee arrintan ayay dadku si weyn ugu hambaliyeen oo comment-kan akhriyay waxaa ka bixiyay dad ka badan 200 oo qof kuwaasi oo dhammaan uu hambaliyay muujinayna say ugu helayeen inay arkaan labadan qof abalmaanahani oo farxad ku wada caweynaya mid kalena ah lamaane si dhab ah isu aroosay amba ay ka dhaxeeyeen nikaax oo meel jawi qurux badan ku wada duulaya si kastaba ha ahaatee waxaa arrintani u hambaliyay dadkan markay 200 ah wax horka laga reebo trayer oo iyagu soo qorayay ereyer oo xaq badnayn balse inta kale oo dhan waxay u hambaliyeen si kal iyo laab ah iyo qiimo sare ku duuleysa balse daawada adiguna waxaan ka codsanay oo hambaliyay soo kale video-ga like saarto oo share gaari saaxiibada kale ee Facebook saad u daawano amba waxaan u gaarno 100,000 subscribe